labada madaxweyne waxay yeesheen kulan dheer dhowrkii beri la soo dhaafay oo isla joogeen. madaxweyne wuxuu yimid shirka dadka adduunka looga hadlayay oo labada madaxweynaha Kenya uu isagu martigelinayay. kadibna labada madaxweyne maanta waxay yeesheen kulan gaar ah markuu dhamaaday kaleeto oo waqti badan ay isla joogeen. waxay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo labada ummadood oo walaalaha ah. waxayna ku heshiiyeen in xiriirku loo soo celiyo sidoo hore uu ahaa intii aan gumagumada waayahan jirtay aysan bilaabmin. gaar ahaan in muddo asbuuc gudaheeda diyaaradaha Soomaaliya ka imaanaya xamar ka imaanaya ay toos Nairobi u yimaadaan oo wajaraysan soo marin. in dadka Soomaaliyeed sida uu dhigay madaxweyne Uhuru ay viisaha Nairobi airportkeeda ay ka qaataan oo aysan safaaradaha soo marin. waxyaabahaas ugu waaweynaa iyo in labada waxay aad u tilmaameen xiriirka labada dal ka dhexeeya soo jireenka ah sida labada isu kaalmeeyeen. madaxweynaheena wuxuu u mahadnaqay dowladda xukuumadda Kenya iyo shacabka Kenya iyo madaxweynaha Kenya intaba sida Kenya ay uga qayb qaateen sugidda nabadgelyada iyo amniga Soomaalida. waxaana lagu heshiiyey in xiriirka labada dal oo walaalaha ahi uusan maaragtay safgarawaa marmar dhacay inuusan wax u dhimin uusan kala gudin dadka Soomaaliyeed iyo dadka Kenya. waa gartay in xiriirka sidiisa lagu soo celiyo ayaad sheegtay in labada dhinac ay ku heshiiyeen. Kenya dabcan waxbay tabanaysay oo go'aanada markay gaaraysay in diiradihii tooska la joojiyo in maxaa la yiraahdaa fiisooyinka dalku galka ay heli jireen madaxda qaar ama dadka diblomaasiyiinta ee dawladda u shaqeeya iyaduna ay hakisay oo ay tiri waa in laga qaato Muqdisho. waxa intuba ay ku andacoonayeen in Soomaaliya ay kala soo laabato dacwadii badda oo dad badanna hadda ay aad u hadalhayaan. marka maxaa lagu qanciyay Kenya oo Soomaaliya aqbashay badii kayskii badii badii jiraya? madaxweynaheena uu si cad u tilmaamay in aysan arrinta badda khilaafka badda ku saabsan oo maxkamadda jiray uusan xiriirka labada dal uusan xumaynin. marka iyadoo arrintaa la og yahay ayaa lagu heshiiyey in labada dal xiriirkoodu uu caadi noqdo. waxaa jirta in wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma ay sheegtay in madaxweyne Farmaajo uu muujiyay kalsoonida in arrinta ICJ lagu xallin doono qaab labada dhinac ay wada aqbali karaan. arrinta dad badan ayaa su'aalo ka keenay, bal maxaad arrinta ka leedahay uga jawaabaysaa? walaa horta dadku su'aalaha way iska qabi karaan, way isweydiin karaan. Soomaalida dhaqan u tahay in maanta dhan su'aalaheeda baan dadku hadda waqtiga u hayaan su'aal isweydiiyaan. laakiin arrinta la xiriirta badda aniguna hadda waa ku cadeeyay anoo soo xigaraya hadalkii labada madaxweyne yiri. adiguna waa si askayso hadalkii wasiirka arrimaha dibadda Kenya uu yiri baa sheegtay. intuba muujinaysa in kayskaasi uu maxkamadda jiro, maxkamadda kala saarayso, laakiin labada dal u baahan yihiin inay xiriirkooda ay wanaagsanaado oo walaalo ahaadaan. marka warkaasi mugdi ku jiri kara ima muuqdo aniga qofka u baahan in loo sharaxana waxa weeye hadda waqtigeena ka qaadanaysa inaynu ku codcelino warkaas. intii muddadii arrintaani ay jirtayna anigu keligay iska daa madaxda dalka qoraalada maaragtay ama go-aanka maxkamadda ama AU-da ama meel kasta aan tegaynay waa lagu celcelinayay mowqifka Soomaaliyeed maxkamadda. haddana waa sidiisii maantana labada madaxweyne way ku heshiiyeen in arrintaasi aysan waxba u dhiminin xiriirka labada dal oo caadi lagu soo celiyo. gabadha wasiiradana waa sheegtay inay tiri. marka hadda walaal su'aal lagu weydiiyaa ka jawaabi kartaa, laakiin dadku haddaan idhaahdo qofkan Jamaal weeye
oo inta qofkii ugu soo noqdo yiraahdo qofkani Jamaal miya waxa kaliya aan dhihi karo waxa weeye waa Jamaal waana waa kuushe waa tahay dabcan dadku waxyaabo mugdi ku jira ayay isweydiin karaan in loo sharaxo waadna ku maasan tahay arrin kale aan jeclahay mudan wasiir inaan ku weydiiyo hadalka wasiirka ay qortay ayaa hadalka wasiirka ay Twitterka ku soo qortay ayaa mugdi ku jira oo dadku aysan si caadi u fahmin marka inaad waxa ku sheegay horta anigu dhigeed baan ahay marka Soomaalidu waxay u jeceshahay inay wasiirka kala maqasho wasiirka dalkooda ay u maqli waayaan waa saaro u baahan inaynu maaragtay ay nafteena fiirino gabadhna wasiir weeyana wasiir baan waxaan ku sheegay waxa lagu wada hadlay waxaan kaloo ku sheegay madaxweynayaasha oo wasiirada ka muhiimsan oo iyagu madaxda ugu sareysa dalka waxay ku heshiiyeen codkoodina duuban yahay waa tahay aad baad maasan tahay waxaan kaloo jeclahay mudan wasiir inaan ku weydiiyo Kenya ciidamo ayaa ka jooga Soomaaliya dhawaantana doorasho ayaa ka dhacday Jubbaland oo dawladda Soomaaliya Kenya way dacweysay sidaan wararka ku heynay ay ku xadgudubtay duulimaadyada hawada Soomaaliya arinta isla qabsiga Kenya iyo Soomaaliya dhinaca Jubbaland marnaba madaxweynayaashu ma soo hadal qaadeen haddii la isku soo hadal qaaday ma jiraan waxyaabo la iska yiri waadna la wadaagi karayso aan ku sheegay waxa lagu heshiiyay wixii khilaafyo jiray in laga gudbo oo xaaladda lagu soo celiyo xiriirka caadi lagu soo celiyo marka arinta waa micnaheedu waxay tahay waa lagu soo hadal qaaday kulanka isagana waan laga heshiiyay macnaheedu waxa weeye wixii khilaafyo jiray oo labada dal dhexmaray waxa lagu heshiiyay in maaragtay maxaa la yiraahdaa la iska ilaawo oo lagu soo celiyo maxaa la yiraahdaa xiriirka caadi lagu soo celiyo oo arrinta maxkamaduna aysan saameyn xiriirkeena aysan si negative ama si dhiba aysan u saameyn sidaas ayaa lagu heshiiyay labada madaxweyne saacado badan bay isla joogeen marka laba saac oo wax kasta ka sheekaysan karaan Soomaaliya ku saabsan ama adduunka ku saabsan ama gobolka ku saabsan waxaas ku sheegay waxa lagu wada heshiiyay iyo waxa laga wada hadlay iyo go'aanka la gaaray aad baad maasan tahay wasiir waa mudan tahay Jamaal